meherad agabka elektarooniga ah lagu gado oo ku taala dalka Mareykanka ayaa waxaa soo galay wiil da'yar oo doonaya in uu iibsado moobilada casriga ah koodii ugu dambeeyay. Lacagtii ayuu bixiyay, kadibna inta uu moobilkiisii qaatay ayuu hoygiisii uu si nabad ah ugu laabtay. Iminka isaga ayaa iska leh moobilkan garaadka badan ee dhalaalaya. hase ahaatee maankiisa ku mashquulin maayo silsilada dheer ee moobilkani uu soo maray ka hor inta aanu isaga u soo gacan gelin, balse brofesoorka reer London ee lagu magacaabo Liv Winar ayaa hawsha inaga furtay isaga oo arrinkan ka faalloonaya markii uu yidhi lahaanshaha moobilkani waxa uu soo maray silsilad dheer oo taxan oo dahsoon ka hor inta aanu soo gaadhin gacanta ninkan dhalinyarada ah. waa silsilad ka soo bilaabantay qodaalka macdanta birta ah ee laga sameeyey moobilka. goobaha macdanta laga qodo badankoodu waxa ay ku yaalaan dalalka saddexaad ee adduunka ee saboolka ah sida dalalka bartamaha Afrika iyo dawladaha Laatinka Ameerika. iyadoo ay sidaa tahay haddana bulshooyinka dalalka ku nool ma intifaacsadaan iibinta iyo dhoofinta macdantaas ee waxaa kootaysta ninka cad oo in yar oo faraguudkood ah ku soo celiya. xataa intaa yar ee uu ku soo celiyaa kuma dhacdo gacanta bulshada baahan ee waxa ay gacanta u gashaa maleeshiyaadka hubaysan ama madaxda kaligood taliyayaasha ah. sidaa awgeed moobilkaaga iminka gacanta kugu jira ama ku dhinac yaalla ma aha keliya agab adag oo dhalaalaya ee waa sheeko dheer oo isugu jirta dhac, boob iyo cadaalad darro. waa markhaatiga cad ee ka marakacaya macdanta iyo khayraadka laga dhacayo dadka saboolka ah kadibna adduunka loogu iibgeynayo iyada oo teknolojiyad horumarsan ah. marka maalinna ma ka fikirtay kolka aad iibsanaysid gaari galbeedka lagu sameeyey in aad markaa bixinaysid qarashkii lagu dili lahaa muwaadin Afrikaan ah oo wax uu galabsaday aanay jirin oo ay dilayaan maleeshiyaadka ku dagaalamaya dalkiisa hooyo. dabcan adigu wax dembi ah ma lihid, laakiin marna ma ka fikirtay qaabka raasmaaliyaddu ay gacmaha inooga xidhayso si ilkaheenna aynu ugu diiranno hilibkeenna. bal sheekada bilowgeeda aynu ku laabanno. caalamku waa eber. ganacsiga Ingiriisku waa qaab dhismeed heer sare ah oo ku qotoma ganacsiga Mareykanka iyo awood badeed oo xaruntoodu ay tahay saldhig Afrikaan ah. marxalad ka mid ah taariikhda Yurub, gaar ahaan sanadkii 1518 Isbaanishku waxa ay war dhiilo leh u sideen qaarad dhan. waa markii ay amar ku bixiyeen in la soo raro rarkii ugu horreeyay ee maxaabiis Afrikaan ah oo laga soo rarayay galbeedka Afrika kadibna la geeyo jasiiradaha Hindiyada galbeed. waxaana halka ka bilaabmay ganacsi socon doona 300 oo sannadood. ganacsigaas oo u dhaxeeyay qaaradda Yurub iyo madax iyo hogaamiyaal Afrikaan ah. ganacsigaasi waxa uu ahaa ka ganacsiga addoonta. si loo kaabo ilaha dhaqaale ee ganacsigan laguma koobsanin addoonsiga maxaabiista dagaalka lagu qabto ama iibintooda oo keliya. addoonsiga wuxuu ahaa ciqaab qaanuuni ah oo lagu ciqaabo qofka faldambiyeed geysta ama qofka lagu yeesho deyn uu iska bixin kari waayo. arrinkaasi waxa uu aad u nooleeyay ka ganacsiga addoonsiga ee Afrika, waxa uuna damac weyn geliyay madaxyaweyntii reer Yurub. heer boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth koobaad ay ka dalbatay ganacsada John Hawkins in uu sheer ka siiyo ka ganacsiga addoommada uu ka ganacsado. xataa waxa ay siisay astaanta noobalnimada oo Hawkins uu dalbaday astaanta in la xardho oo loo ekaysiiyo nin Afrikaan ah oo silsilada ku xidhan. halkaa markaynu marayno waxayna hor imanaysa faalladii uu bixiyey faylasufkii reer Ingiriis ee John Stuart Mill oo ahaa afhayeenka raasmaaliyadda Ingiriiska. John waxa uu yidhi way adag tahay ganacsiga Hindiyada galbeed in laga soo qaado ganacsi ku kooban jasiirado shisheeye, maxaa yeelay waxa ay soo shabahdaa ganacsiga dhex mara miyiga iyo magaalada. marka si kale loo dhigo, ganacsigaasi wuu qiimo beelayaa haddii ay meesha ka baxaan addoonta Afrikaanka ah. hadalkaa waxaa xaqiijiyey Karl Marx markii uu yidhi horumarka dhaqaale ee Yurubiyaanku ay gaadheen waxa uu ku yimi dhibaatada aan la soo koobi karin ee soo food saartay dadka Afrikaanka ah iyo Mareykanka dhaladka ah si uu u bilaabmo waagii wax soo saarka hanti wadaaggu. intaa wax ka siiya badan waxa welinaya qoraaga iyo taariikhyahanka reer Guyana ee Walter Rodney oo ku xusay dhignihiisa qaabka ay Yurub dib u dhaca ugu horseeday Afrika. waxa uu sheegay markii Yurubiyaanku ay soo gaadheen labada qaaradood ee Ameerikada waqooyi iyo ta koonfureed in ay garwaaqsadeen dhulkan khayraad aan la suuradaysan karin in ay ceegaagaan, khayraadkaas oo u badan dahab iyo qalin. waxa ay sidoo kale garwaaqsadeen macdantaas soo saaristeeda iyo maalgelinteedu in aanay awoodi karin dadka asalka ah ee deegaanka deganaa oo ahaa Hindida cascas. kolkaas ayay go'aansadeen in ay gumaadaan dadkaas oo Afrika ay ka soo waaritaan addoomo muruqyo waaweyn oo hawsha qaban kara. xataa xukuumadaha Afrikaanka ah addoonta waxa ay kaga bedelan jireen hub iyo agab ee kama iibsan jirin. heer markii dambe Achaga Turududu oo ahaa boqorka Dahomey sidoo kalena in badan la dagaalamayay addoonsiga Yurub ay wado
uu go'aan ku gaadhay kacdoonka inuu faraha ka qaado oo uu Yurub kula macaamilo ganacsiga addoonta, baahi uu u qabay hubka iyo baaruudda iyo sidoo kale kuulaha. gaboodfallada aan dhammaadka lahayn ayaa Yurub adduunka ay ku qabsatay. dahabkii uu ka helay Afrika waxa uu Boortaqiiska ka caawiyey in uu ku maalgeliyo weeraro kale oo gumaysi oo uu ku qaaday dalalka Aasiya. sidoo kale dahabkaasi waxa uu Holland ka caawiyey inay samayso lacag dahab ka samaysan, taas oo horseeday Holland in ay noqoto dalka maalgeliya Yurub oo dhan waqtigaas. taas oo si cad u muujinaysa fikirkii uu ka dhawaajiyey mufakirkii weynaa ee reer Masar ee Cabdulwahaab al-Masiri ee uu ku sheegay ku dayashada yeelista nidaam dhaqaale oo la mid ah nidaamka dhaqaale ee Yurubta casriga ah waxa ay mari kartaa oo keli ah wadadii reer galbeedku ay soo mareen sanadadii gumaysiga ee ay adoonsanayeen bini'aadamka ayna ugaarsanayeen khayraadka dabiiciga ah. saddex xagalka muquurinta. aniguba sidoo kale addoommada waan soo addoonsaday, balse waxa aan ahaa moodeelka ugu casrisan uguna midabaynta badan. noloshay maan arkin meydka dad geeriyooday, manaan urinin urta jir qurmay, sidoo kalena maan maqlin qaylada xanuunka iyo tawaawaca. balse waxa aan sameeyey waxa uu ahaa sharka laftarkiisii. waxa aan u malaynayaa falaqaynta u dambaysa waxa aan isu arkaa in aan ahay dambiile weyn iyo dhagarqabe shar badan. dhegnihiisa caanka ah ee dilka dhaqaale ee ummadaha burcad dhaqaaleedka reer Mareykan ee John Perkins ayaa hadalkan uu ka soo yeedhay, isaga oo sawir inaga siinaya dembiyada tobanaanka sannadood cusleeyay damiirkiisa. dembigaas oo ahaa dhiigbax inuu u horseedo dhaqaalaha dowladaha soo koraya ee ku kala yaala Afrika, Aasiya iyo Ameerikada Laatiinka ah. hawshaana waxa uu u mari jiray saddex xagalka arxagka daran ee kala ah awoodda dowladeed, awoodda caalamiga ah ee bangiyada maaliga ah iyo shirkadaha caalamiga ah. saddex xagalka gudihiisa shaqada John Perkins waxay ahayd dowladaha soo koraya in uu ku dhiirigeliyo in ay aqbalaan mashruuc horumarineed dalkooda in laga fuliyo, kadibna lagu riixo dowladahaasi inay dhaqaale ka amaahdaan bangiyada maaliyadeed ee aynu soo xusnay, iyada oo lagu xidhaayo shardi ah mashruuca fulintiisa in ay qaataan shirkadaha caalamiga ah. kolka amaahda aan ka fiirsiga lahayn ee ay ku dhaceen awgeed, dowladahaasi waxa ay ku dhacaan dabinka deynta. deyntaas oo ku qasabta inay u hoggaansamaan dowladaha caalamka koowaad oo ah dowladaha maamulo bangiyada maaliga ah iyo shirkadaha caalamiga ahba. kadib dowladaha horumaray waxa ay guda galaan in ay xaalufiyaan khayraadka dalka deynta lagu leeyahay, iyaga oo dadka dalka u dhashay aanay waxba ka faa'idin khayraadka dalkooda ee la daldalanayo. waxaa tusaale inoogu filan dalka Ecuador oo bankiga dawliga ahi dhaqaalaheeda uu ku curyaamiyey 30 sannadood oo keliya gudahood, heer uu dalku dhaahiyey in uu masalifay $100 ee kasta ee xukuumadda Ecuador ay ku iibso batroolkeeda $2 iyo badh keliya ayaa gaadha waxbarashada iyo caafimaadka, halka inta soo hadhay ay ku dhacdo gacanta dadka tirada yar ee maamulka haya iyo shirkadaha caalamiga. si warka aan u soo koobo, madaxda dowladaha horumaray waxay awood ku ilaaliyaan madax iyaga daacad u ah iyo maleeshiyaad bulshadooda cadaadisa, taabadalkeedana xoogaa yar oo dhaqaale ah ay gacanta u geliyaan. tusaale ahaan dalka Equatorial Guinea la dhaho 1995kii shidaal dalkooda laga helay waxa uu horseeday sicir barar dhaqaale oo ba'ani inuu ka dhaco dakhliga qowmiga ah ee dalka, halka saamiga muwaadinka reer Guinea kaga soo beegmayay iibka shidaalku uu ka badnaa saamiga kaga soo beegmayay muwaadinka Sacuudiga ah. celceliska dakhliga dalkuna sanadkii waxa uu ka sano maray dakhliga dalal waaweyn oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Jarmalka iyo Jabaan. balse ka hor inta aanad la yaabin suuragal la'aanta sheekadan, gunaanadka murugada leh ee sheekada ayaa daaha inooga faydi doonta in tirakoobkani uu yahay mid ina marin habaabinaya. maxaa yeelay 16 bilyan ee dollar ee dalka soo galayay sanadkiiba waxaa afka u dhiganayay hogaamiyaheeda kalitaliska ahaa ee Tuadero Obiang, halka bulshada dalku ay ku noolaayeen wax gaadhaya $2 maalinkii. laga bilaabo Hobbes ilaa John Locke. talow maankaaga maxaa ku soo dhacaya kolka aad maqasho magaca dalka Norway, dal horumarsan, horumar tiknoolajiyadeed iyo baraare lagu tirax tagay. intaas oo dhan waxaa dheer cadaalad bulsheed iyo siyaasad guulaysatay. bal iminkana aynu eegno waxa maskaxdaada ku soo degdegaya kolka aad maqasho dalka Nigeria tusaale ahaan. markiiba saboolnimo iyo baahi masu kaa sawireen, gaajo, baahi iyo dagaalo aan dhammaad lahayn. intaas oo dhan ay dheer tahay dulmi, kala sarreyn bulsho iyo kalitalisnimo siyaasadeed. tusaalaha Norway waxa aynu ku eegi karnaa falsafada Hobbes ee uu inoogu sheegay danta gaarka ah ee boqortooyada in lagu xaqiijin karo uun keliya danta guud, oo hodanimada boqorka, awooddiisa iyo sharaftiisu waxa ay ku iman karaan uun kolka shacabkiisu uu yahay mid hodan ah, awood leh oo sharaf leh. mana jiro boqor noqon kara mid awood badan ama hanti leh ama ammaan ku noolaan kara
haddii bulshadiisu ay tahay bulsho sabool ah, bulsho akhlaaq daran, ama bulsho liidata oo aan awood u lahayn cadowgeeda inay iska caabiso. halka tusaalaha Nigeria aynu ku eegi karno falsafada John Locke ee uu ku sheegayo inay jiraan nooc kale oo boqorrada ka mid ah. boqorro doonaya mar walba inay awood u yeeshaan samaynta sharka iyo xumaha, oo u arkaya maslaxadooda shakhsiga ahay in ay ku xidhan tahay inay ka dhigaan bulshadooda bulsho sabool ah oo baahan oo taag daran oo aan awood u lahayn inay wax iska caabiyaan. waana sababta weligoodba ay boqorrada u sii ahaadaan. kolkaa haddii aynu nidhaahno madaxda Yurubiyaanka iyo Maraykanka ahi waa kuwa uu sheegay Hobbes, Afrikaanka, Laatiinka iyo Eeshiyaankuna waa addoonta uu ka faallooday John Locke, waxaa hubaal ah markaa in madaxda galbeedku ay ku dadaalayaan addoonta iyo dalalkooduba inay ku jiraan xaaladda dib u dhacsanaanta ah ee ay ku jiraan, si ay ugu suuro gasho inay ku nooloodaan baraare iyo bashbash. tusaale intaa ka cad oo ka waaqicsan isaga oo ina siinaya ayuu John Perkins inooga warramay madaxweynihii Panama ee lagu magacaabi jiray Cumar Torrijos, kaas oo ku geeriyooday shil diyaaradeed oo uu madmadow ku jiro kadib markii uu sanado tiro badan diidanaa mashruuca horumarinta ah ee Maraykanku uu doonayay inuu ka fuliyo kanaalka Panama. waxa uu sidoo kale inooga warramayaa ra'iisul wasaarihii Iiraan ee Mohammad Mossadegh oo xilka ay ka tuurtay shirkad batrool oo caalami ah kadib markii uu doonay in uu kordhiyo dakhliga dalkiisa ka soo gala lacagta shidaalka lagu iibiyo. kan iyo kaasiba waxay ahaayeen niman han leh. waxa ay doonayeen dadkooda inay ka xoreeyaan amar ku taaglaynta sayidka cad. hase ahaatee ninka cadi nolol uma oggola cid aan isaga ahayn, mana oggola ganacsi kale in uu jiro aan ka ahayn ganacsiga addoonta lagu quudinayo hilibkooda, ama inuu addoonta siiyo moobil casri ah oo ay ka tif leeyihiin dhiigga maato aan waxba galabsan.